beauty and cooking waxaan leeyahay saxaabay waan idin salaamay waxaan rajaynayaa saanu caafimaad qabayna caafimaad qabtaan dhamaantiin waxaan idin leeyahay soo dhawaada marka koobaad iyo marka labaadba asxaabta cusub waxaan leeyahay waa mahadsantiin kun jeer asxaabteedii hore waxaan leeyahay soo dhawaada idinna aad ayaan idin jecelahay kuwa hore iyo kuwa dambeba maanta waxaan inoo wadaa mask wajiga haaraha leh wajiga madmadowga leh wajiga finanka leh iyo qofkii raba inuu isqurxiyaba samar ayaa soo galay yaa waqtigii la isleedhin lahaa baan ku dhalay labisan lahaa dadka qurbaha jooga waqtigii qabowga ka baxeen xafladu jireen la soo booqanayay ha la isqurxiyo oo ha la iscadeeyo oo wax gurigaaga yaala oo fudud oo natural ah oo dib ku geysanaynin isku cadee waxaan leeyahay hablaha walaalaha halkan waxa igu jira baradho aan soo shiiday wax allaale iyo waxaan ku shiiday male biyaan ku kariyay ka bacdina keligeed ayaan ku riday mashiinka oo soo shiiday halkan waxaan ku haystaa dacar biyur garaslim oil warango qof waliba sidoo u yaqaan ama cornflower ama nasha moringe allaay maanta baan ku guuraa alaabta ma hawl yara saxaabay sababtaan halka waxaan inoogu soo shubay baradhadii waxaan kale inoogu soo shubi doonaa malqacad xaafkeed oo ah kuma waa malqacadaas way dhiman tahay intaas ayaan saa isugu qasi doonaa insha Allah bismillaahi kariim inta markaan isku qasay isdhex geliyo waxaan ku soo dari doonaa iyadana dacarta warangada waan ugu dambaysiin doonaa saliidda ayuunbaa ka dambayn doonta maadaama rabo inaan intan si fiican kasoo dhex gasho hablaha wajigooda sasaxiska yahay asxaabay wada ragtaan waa malqacadii dacarta ahayd baradhadii dacartii iyo warangadii ayaan saa isugu soo walaaqayaa waan isku soo noqon doonaa insha Allah asxaabay wada ragtaan sidaan u soo qasay waanigaas ka waxay isugu jiraan baradhadii dacartii iyo moringihi waxaan hayaa warangadii waa malqacada oo aan buuxin ama malqacada afkeeda hore intaas ayaan saa isugu qasayaa asxaabay ka bogta inaba caadi ma aha alaabtani waa 3 shay meesha waxay isugu tagay 4 shay oo aan inaba caadi ahayn haday warangada tahay haday moringaha tahay iyo haday baradhada tahayba waa waxyaabaha loo isticmaalo haday tahay haaraha finanka wajiga daalan ama diifta daalka ka muuqdo ama saamaleelka ka muuqdo ama hooyada umusha ah oo kale ilmaha yar haysata aad ayuu anfacayaa saxaabi xoog ayaan isugu soo qasi doonaa in qof waliba saliidda isagu uu jecel yahay ayuu isticmaali karaa anigu soo waxaan isticmaalayaa saliiddan la yiraahdo garaslim oil qofkii aan aqoonin wuxuu ka qaadan karaa screenshot dukaamada iibiya alaabta beauty ayaa laga helaa ama dukaamada carabta oo kale waa laga helaa hindida shiinayska wataas malqacadaas mugeed ayaan ku daray sidaa ayaan isugu soo qasi doonaa markaan waxaba ka soo dhiga baan ku qori wax sida creamka ayaan isku soo noqon doonaa saxaabay waa kaas waan soo dhammaystiray
sidaa ayuu soo baxay insha Allah billahi kaliya waxaan hal mar isticmaalayaa ama laba mar maaha halkan waxa iigu diyaara kan oo aan ku diyaarsado waxyaabaha aan wajiga marsada talaagadana ku garshado wiigi halka xaba ayaa ka sii joogta kii aan isticmaalayay wiigi hore sababta aan halka xabo uga sii joogto waayo laba xabo marka aan guriga iska joogo laba ayaan la baxaa si aan inta jirka ilaa qoorta wajiga ku dhamaaha wada isticmaalo asxaabay sidaas waxaan rajaynayaa inaad ila aragtaan isdaryeel adoo gurigaaga jooga isku daryeel waxaad haysatid ee gurigaaga yaala muhiim ah inaadan haddaanad haysan raadisid saliida olyolifada saliida qumbaha saliida lowska iyo saliida kale oo dhan ee adigu shakhsiyan aad isticmaasho saliida vitamin A oilsha saliida kalluunka ay saliidad haysato oo shakhsiyan ku anfacda ayaad isticmaali kartaa waad ila aragtaan intaas iyo inta aan hadda marsanayo ayuu ii noqday waxaan rajaynayaa saxaabi inaad soo tijaabin doontaan intii hore u isticmaashayna ay ka heshay inta hadda soo tijaabin doontaan ay ka heli doonto waxaan idin leeyahay subscribe-ka iyo like-ta share-ta iyo comment-igu waa xaqiina assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh